Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti habboon idil ahaantiinba daawadayaal kusoo dhowaada Somali Action waa channel maalinle aad kala heli doonto wararka dhaqaalaha siyaasadda iyo sirdoonka iyo guud ahaanba wararka kusoo kordha guud ahaanba wadanka Soomaaliya barnaamijkeena maanta waxaynu kusoo qaadan doonaa diyaarad ka soo duushay magaalada Muqdisho xarunta wadanka Soomaaliya oo xoog ku timi magaalada Hargeysa kadib amarkii loo diiday haddaba daawadayaal sidee ayay xoog u soo gashay garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa barnaamijka aad kaga bogan doontaan ha yeeshee inteena barnaamijka ugu gudagelin haddaad channelkan ku cusub tahayna subscribe saar asxaabtaada la wadaag ku soo dhawaada barnaamijka madaarka magaalada Hargeysa ee Cigaal International Airport ee Somaliland ayaa waxaa ka soo degtay diyaarad ka soo kacday magaalada Muqdisho xarunta wadanka Soomaaliya xilli ay xukuumadda Somaliland uu hogaamiyo Mudane Muuse Biixi Cabdi ay shaacisay inay joojisay guud ahaanba duulimaadyadaasi Somaliland ayaa dhawaan soo saartay go'aamo ay ku joojinayso duulimaadyada wadamo ay ku jirto Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho xarunta wadanka Soomaaliya maadaama ay ku doodo inay tahay dal madax bannaan oo xornimadiis ka qaatay 1991kii guud ahaanba wadanka Soomaaliya hase yeeshee sida ay ogaatay warbaahinta madaarka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo degtay maalintii Khamiistii diyaarad ka timi Muqdisho iyadoo aan la kulmin waaxda cadaadis oo uga imaanaya maamulka madaarka Cigaal maamulka diyaaradda African Airways oo la hadleen warbaahinta ayaa u xaqiijiyay in diyaaraddu ay duulimaadkeedii caadiga ahaa ku timi magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland iyadoo siday rakaab kaliya oo aysan wax xamuul ah ka soo qaadin magaalada Muqdisho xarunta wadanka Soomaaliya diyaaradan ayaa African Express ayaa ahayd diyaaradda kaliya ee maalinkii Khamiista ka soo kacday magaalada Muqdisho xarunta wadanka Soomaaliya isla markaana ka soo degtay madaarka Hargeysa iyadoo siday rakaab badan talaabadan ayaa wiiqaysa go'aamadii ay Somaliland ku sheegtay inay ku joojisay duulimaadyada magaalada Muqdisho maadaama ay dhawaan ay dowladda federaalku shaacisay in kiis la xiriira coronavirus laga helay gudaha caasimadda magaalada Muqdisho mana jirto wax wara oo ay xukuumadda Somaliland ka soo saartay diyaaradan ka timi magaalada Muqdisho ee ka soo degtay madaarka Hargeysa ee Cigaal International Airport isla markaana jebisay amaradeedii xayiraadda ee magaalada Muqdisho waxaana xusid mudan in dowladda federaalka ee Soomaaliya aysan joojin duulimaadyada gobolada dalka halka ay gebi ahaanba joojisay duulimaadyadii caalamiga ahaa ay ahaayeen midaasi oo sababtay in diyaarado ka soo degi lahaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa ay baaqsadaan xilli ay Somaliland shaacisay in madaarkeedu uu furan yahay